siiyo sheekh bashiir tababare cabdiweli odayaasha haweenka madax dhaqameedka bahda saxaafadda dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waa maalin weyn, waa 3 bisha Noofambar, waa 25 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Somaliland. waxaa runtii farxad weyn inoo ah in xafladan la isoo qabqaabiyey ururka dhalinyarada nooleeye oo ay ugu talagaleen munaasabadda 25 guurada ciidanka booliska awgeed inay guddoonsiiyaan taliyayaasha saldhigyada kala duwan ee magaalada burco shahaadooyin ay ku maamuusayaan waxqabadka iyo hawsha ballaaran ee nabadgelyo ee ay ka hayaan gobolka togdheer. runtii marka hore waxaan halkan wadno ugu dirayaa munaasabadda awgeed madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane muuse biixi cabdi, taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Somaliland cabdilaahi fadlan imaan, taliya xigeenada, saraakiisha, saraakiil xigeenada, dabrayaasha, caruurtooda iyo xaasaskooda meel kastoo ay ka joogaan jamhuuriyadda Somaliland. waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaahay subxaana wa tacaala haynagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. intaan haddaan ka gudbo, runtii waa garaar aada iyo aada u fiican in sidan oo kale ay u fekeraan dhalinyarta caqliga saliimka ah ee reer burco, iyadoo oo muujinaya cidda bulshada u qabatay shaqo wanaagsan inay ku maamusaan shaqada ay qabteen. bini-aadamku waa wanaagsan yahay inuu sheego qofku wuxuu qabtay, in lagu ammaano iyo in lagu abaalmariyana wuu leeyahay. waxay tani sii fogeynaysaa ama ay midnimada u sii adkeynaysaa saaxiibtinimada ka dhaxeeya booliiska iyo shacbiga reer togdheer, oo runtii muujinaysa inay shacabku isha ku hayaan ama diiradda ay ku hayaan shaqada ay booliisku ka hayaan magaalada burco. taa beddelkeed ay og yihiin haddii ay wax ka qaboodaan booliiska inay sida ay maantaba maaragtay jaa-isadooyinka ay ugu guddoonsiinayaan shaqada wanaagsan ee ay qabteen. ama runtii munaasabada ka faa'iidaysanaya waxaan shacbweynaha reer togdheer gaar ahaan reer burco ku boorinayaa in si booliisku uu u guto shaqadiisa si habsami ah inay shacabku kala shaqeeyaan qaabkii ay booliisku ku qaban lahaayeen qofka loo yaqaano tuug nadiifka. booliisku way yaqaanaan qofka maandooriyaha ka ganacsada ama qofka keena. booliisku way yaqaanaan qofka tuugga caanbaxay ee dhacoodiga ah way yaqaaneen. laakiin marmar waxaa jirta booliiska inay ka dhex galaan dadka uu ka dhex galo ninka lahayo tuug nadiif. tuug nadiifku waa kuma? waa inanka gurigooda jooga ee iskuulka dhigta ee xaragawanaya ee fiidkii markuu gurigooda ka soo baxo dariiqa istaagaya ee dadka moobilada kaga qaadanaya. ninkaasaa la yidhahaa tuug nadiif. waana waxa u badan ee runtii iminka ka socda magaalada burco. sidaa daraaddeed booliisku arrintaa markay ka hawlgalaan inta badan waxaa dhacda inay dadku ku cawdaan ama waalidku ay ku cawdaan qofkani inaanu ahayn qofkii rabshada sameeyey ee uu yahay inan saalixa oo wanaagsan oo gurigoodii ka soo baxay oo aan waxba samayn. taa booliiska waxaa ka caawin kara waa waalidka, waa guddiyada xaafadda, waa shacabka oo wada shaqayn dhow la yeesha saldhigyada iyagoo u tilmaamaya ninka dhallinyarada ah ee xaafadda ka tirsan ee arrintaasi ku caanbaxay. marka waxaan jecelahay inay booliiska dadku ay kala shaqeeyaan nabadgelyada, informationka warka ay siiyaan, cidda xun ee xaafadda ku dhex jirta ay uga warramaan oo ay u soo gudbiyaan. waxa weeye taasi waxay sii wanaajinaysaa nabadgelyada iyo saaxiibtinimada booliiska iyo shacbiga. marka labaad, soomaalidu waxay tidhaahdaa ilaahay subxaana wa tacaala haddii uu adduunkula maago dadkiisa ayuu ku siiyaa. maanta magaalada burco waxaan u malaynayaa inay geli doonto casri cusub ama waqti cusub oo horumarineed oo wanaag oo dhaqaale oo akhlaaqeed. taana waxaa caddayn kara
dhalinyarada gobolka togdheer oo maanta isu habaysay una diyaargarowday inay mujtamacooda kala qayb qaataan dhinaca horumarinta, dhinaca isdhexgalka, dhinaca wanaagga inay u qalab qaateen taasaa muujinaysa. taasina waa calaamad inoo sii iftiiminaysa in burco ilaahay ula maagay wanaag, horumar, ilbaxnimo in ilaahay subxaanahu watacaala ula maagay, maadaama oo arkayno qaabka ay u shaqaynayaan, qaabka ay u howlgelayaan, qaabka ay maaragtay ugu heelan yihiin horumarinta gobolkoodu dhallinyaradii reer burco. aad iyo aad baan u bogaadinayaa oo aan u soo dhoweynayaa guud ahaan ururada dhallinyarada ee ishabeeyey oo runtii u heelan inay mujtamacooda wax la qabsadaan. waxaana halka baaq uga dirayaa dhallinyada qurba joogta ah ee reer togdheer, ganacsatada iyo dadweynaha reer togdheer inay dhallinyaradaasi ku dhiirigeliyaan oo la shaqeeyaan oo la berber istaagaan howlaha baaxadda leh ee ay qabanayaan. annagu ka maamul ahaan hadday tahay maamul gobol iyo hadday tahay maamulka degmadaba waxaan diyaar u nahay inaan dhallinyarada berber istaagno, inaan tilmaanno, inaan toosinno, adil iyo adduunba inaan kala qayb qaadano howlaha ay wadaan ee ay u adeegayaan mujtamaca reer burco. mar labaad waxaan leeyahay ciidanka booliska guud ahaan iyo gaar ahaan ciidanka gobolka togdheer booliska hambaliyo hambaliyo hambaliyo. aad iyo aad baan idinku maaragtay mahadnaqayaa ka maamul gobol ahaan shaqada wanaagsan ee nabadgelyada ku saabsan ee had iyo habeen aad u taagan tihiin ee aad gobolka ka haysaan. waxaanaad hesheen falcelintii shaqada aad u haysaan ummadda reer togdheer maanta waad hesheenoo wataa mujtamaca reer burco ay garteen inay idinku maamusaan wixii aad bulshadiina u qabateen. idinkana waxaan idin leeyahay halkaa hore uga sii socda. waxaan guntiga gabagabadii kusoo gurinayaa, waxaan kaloo iyagana mahadnaqayaa lacagtan maaragtay la ururiyey ee ay ka soo ururiyeen dugsiyadu iyagoo ugu talagalay inay maaragtay ku wareejiyaan dhallinyarada ka shaqaynaysa iftiiminta magaalada burco oo iyaguna runtii haya shaqo aad iyo aad u ballaaran oo hormuud ka yahay dhallinyarada halkan fadhida ee saxaafadda. waxaan kaloo runtii mahadnaqayaa saxaafadda gobolka togdheer ee iyaguna runtii mar walba heegan u ah inay ka qayb qaataan horumarka iyo wanaagga gobolka togdheer. aad baan macallimiinta, dugsiyada, ardayda iyo ururada loo mahadcelinayaa. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in maaragtay munaasabadeeda kale uu nagu gaadhsiiyo cimri dheer, bashbash iyo barwaaqo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.